بسم الله الرحمن الرحيم وأنا ونكسن دمان أصحابتا يا خيرتوا waxaan kusoo dhaweynayaa casharadeen imtixaanaha juristi maanta darsiga aynu qaadanayno waxa weeyaan darsi qaabka tirooyinka la isugu geeyo ama maadada xisaabta qaybteeda isu geynta sideebaa laba tiro wadartooda loo soo saaraa sideeba tirooyin fara badan aan isugu geyn karaa taaynu dhiganaynaa maanta waa taasi maadadan ciwaankeedu oo sidaan hore usoo dhigan jirnay waayahay bismillahi raxmaan raxiim intaa ka bacdi waxaan isku dayayaa inaan qoro tirooyin kadib aynu isla eegno bantirooyinka qaabka la isugu geeyo waayahay tusaale waxaan usoo qaadanayaa haddii aad haysato ul hal ula adigoo haysta ayaaba waxa lagu keenay oo lagu siiyey xabad labaad dingad labaad ama ul labaad haddiiba ay kula ekaatay rooti moofana kaba fiican hadda hal xabo oo roodhi moofaa haysta ama roodhi laydha ayaa waxaa lagu siiyey xabad labaad maxay soo baxaysaa wadartooda waa xabadani oo lagu daray xabadan calaamadan waa ku darid waa calaamada loo yaqaano isugeynta calaamada dambe maxay sheegaysaa iyadu calaamadaas waxay tilmaamaysaa inoo sheegaysaa waa calaamadane waxay inoo sheegaysaa wadarta labada tiro wadarta tirooyinka waayahay haddaba xabadan moofada ah haddii lagu daro xabad kale oo ninkan uu haysto markii hore hal xabo haddii ninkani uu yahay qof markii hore xabad rootiya haystay hal rootiya ayuu haystay waxaana la siiyey imaka xabad labaad tirada rootida ee uu haystaa hadeerto waa laba waxa uu haystaa xisaab ahaan maxay 2 midh haddii si kale aan u sawirana sidaanay noqonaysaa 2 midhba qofkii ayaa wada qaad waayahay aan hore haddaba sii socdo hadeerto haddaba waxaa dhacday tira ahaan haddii aan u qoro tiradeenaa sare waa xabad rooti ah oo loo geeyey xabad labaad tirada roodhida qofkaasi uu ninkan haystaa markii hore halkaa xabo haystay xabadana waa la siiyey tirada rootida ee imaka haystaa waa 2 midh markaa sidaasi lamid a haddii aan tira ahaan u qorno waxay u ekaanaysaa qaab noocani ah hal rooti ah tusaale loo geeyey xabad kale tirada roodhida ah ee meeshani inoo taallaa waa hal xabo lagu daray xabad kale wadartoodu markaa waxa ay noqonaysaa waa laba midh waay aan ku sii socdo ninkii ay naqaanay ee cabdi ahaa ninkanaan magaciisa ka dhigo cabdi ninkan magaciisa aan cabdi ka dhigo cabdi markii hore hal rooti ayuu haystay halkii rootida ahayd waxaan ugu geeyey xabad labaad oo la siiyey si lamid ah cabdi maanta waxa uu haystaa tiraba 3 midh oo roodhiya 3 midh oo roodhiya waxaa la siiyey 4 kale oo rooti ah ayaa loogu daray waa imse wadarta roodhida ama rootida uu cabdi haysto imaka wadartu waxay noqonaysaa 3 loo geeyey oo lagu daray 4 tira ahaan waa 7 cabdi waxa uu haystaa 7 midh oo rooti ah aan si kale oo si fudud aan u dhigo cabdi awalkiisii hore waxa uu haystay 3 midh oo rooti ah 3 midh oo rooti ah waxaa loogu daray oo la siiyey
afar mid oo rooti ah. wadarta guud ee Cabdi haysto ee rootida ah waxa weeyaan xabad 1 2 3 4 5 6 7. wadarta guud ee Cabdi rootida uu haysta waa 7 xabo. halkan aan ku qoro dhammaan 1 2 3 4 5 6 7. saddexdaasi hore isaga ayaa hore u haystay. afartanna waa la siiyey. tirada roodhida uu haystaa waxa weeyaan 4 lagu daray 3 oo macnaheedu noqonayso 7. hadeerto waxaynu baranay tirooyinka fudud ee isugeynta ah. maanta waxaan ku joojinayaa intaas ayaan ku ekeysiinayaa. laakiin waxa aan dirayaa waxa weeyaan layligeeni koowaad. layliska waxaa loogu talagalay in ardaygu guriga kaga soo shaqeeyo iskuna tijaabiyo tirooyinkan in uu fahmay iyo in kale. tirada koowaad waa 4 loo geeyay 3. waxaa lagu sameynayaa marka hore tiro ahaan waa la isu geynayaa, marka dambena waxaa lagu sameynayaa sawir ahaan ayaa loo muujinayaa ardaygu si uu u fahmo. waayahay waxaan ardayda ka codsanayaa in ay ku muujiyaan sawir ahaan jaantus ahaan sidani oo kale tirooyinka ay ugu kala dhigaan kadibna wadarta ay soo saaraan. intaas ayaan maanta ku ekeysiinaynaa. waa injineer Khaalid Axmed Foodhaadhi oo idin wassalaamu calaykum iyo nooli kulanta.